soo dhawaada saaxiibayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan. maanta waxaa idin sharxi doonaa taxanaan duqeyso badan oo la yiraahdo Zombie Detective oona soo baxay sanadii hore usoo dhaaf 2020 muuqaalkiini guda ogan sidii caadiga waxaan ku xasuusinaya muuqaalka loona geliso janaalka subscribe dooro subscribe coin aad iyo aad baa u maasan tahay. bilowga taxanaan waxaa agnay media la qashinka qoylin ee fidistafkiisa kahor intaysan qoyloodu weer in shamiidkii baa istaagay wuxuuna bilaab inuu sigaar shito isigoo adeegsan shidaa u watay laakiin wuu yahay markuu qiiq kasoo baxay meel jirkiisii ka mid ah halkuu kasoo bixi laasanka isigoo casho ku jirtay kor u qaaday fanaanadiisa wuxuuna arkay jirkiisoo dhaawacyo buuxda ka muuqdaan laakiin si mucjisho wuu noolaa wuxuuna isku dayay inuu balse codkiisii wuxuu noqday mid zombie ah wejigiisii wuxuu noqday mid iska baqaya markuu maraadid ku egay markuu wejigiisii casaan iyo buluus ku dhaafsan oo eg zombie wuxuu garwaaqsaday noqon zombie wuxuuna go'aansan noloshaas kusii noolaan wuxuu isku soo turbuur dheer si isku dil balse zombiga sifad uma dhinto niyajab ogeed wuxuu maalinba ku jiri kood maalooy gaajo daran awgeed uu suuxay markuu miir wuxuu ogaa inuu cunbakeelon arkirin taasina aad buu ugu nacay wuxuu fahmay suusan bii ku noqday su-aashaasi daray maskaxdiisii ugu wareegaysay ugu wuxuuna u baahay inuu ogaado wixii ru dhacay taasina waxay suurtagalada ku yidhi duwada adduunka biniaadamka isigoo si tabadan u soconay sidii zombi ugu baxay keenta wuxuuna yimi magaalo wuxuuna halkaas ka yar jaakad gabar ilad wuxuuna xirtay gabadha jaakad laheyd ayaa timiigdi raadinaysa saambigii wejigiisii weylix wuxuuna aamusay wuxuuna garwaaqsadii codkiisii la maqal laga baqi doono qofku dili doono gabadhaana huriida mabaaris magaceeduna hasuuniya waxay jira haddii aan rajaagada qaado laakiin mobilkiisii wuxuu ku jira jeebka zombigiisi degin usii mobilka sooniya wuxuu maraysa inuu yahay wiil sabool ah saas darteedii lacag beerta inay siiso maalinta xigta mar kale kaajooday wuxuuna isku dayay inuu dhex ku dhufta gees ukunta shimbirta soo rido laakiin wuu dicif ugu dambeyn wuu suuxay markuu soo toos wuxuu markale cunayay xayawaano taasuu aad ugu xumaa mari inuu noqdo zombi durjoog ah wuxuuna u baahnaa inuu ogaado noloshiisii hore suu taasi u gar wuxuu ogaa inuu dhaqmo sidii biniaadamka laakiin codkiisii mee sida dadka saa darteed wuxuu bilaab tababar siduu noqdo si biniaadam wuxuuna aad jimicsi duuga ku yaal magaalada halkaasuu ku barnay sida loo socdo markii hore aad buu ugu dhibtooday balse dadaal kadib uu bartay dadka caadiga loola socdo xilligaas wuxuu bilaa in afkiisa usoo tago ulsa ugu tababara hadalka wuxuuna bilaa inuu si tartiib hadalsi usi xakameynaya wuxuu bilaa inuu hadal sida dadka wuxuuna buug ku barsi wax loo cunay si uu isticmaalo kubastigiis sidoo kale wuxuu bartay akhlaaqda miiska ugu dambe wuxuu bilaa inuu noqdo biniaadam buuxa dhar buu magaalada ka xajirsa u xirto halkaas uu khabar ka dhigtay gurigiisa maalin yuu arkay ninka diri ku tuur buur dheer zombigi wuxuu u tagay suu eeg ninkii la tuuray wuxuu nuuga in weli nool yahay ninkii dhaawaca wuxuu sii furyaal kahor intuusan dhimin zombigi wuxuu aasay ninkii si xushmad leh kadibna wuxuu ogshan dinadiisii wuxuuna kaar aqoonsa muujiyay ninkaas waa basaas dambibaaro loola jirkim kaarka ayaa tilmaamay ciwaanka xafiiskiisii halkaasuu zombigukaas in muddo ku noolaado markuu halkaa tag wuxuu ogaatay meel cudurqa biniaadam ku noolay muddo laakiin qaboojiya waxa yaal cunbadan wuxuuna cunay sigoo gaajaysan laakiin zombig ma dhiibshin karo cuntooyinka biniaadamka wuxuuna habeenkii aad uma tagay wuxuu fahmay in keli hilibka ciirin ku cuni karo suu hel wuxuu u baaha lacag saas darteed wuxuu bilaa inuu baakadadiisa intii shaqada ku jir waxaa soo dhacay telefoonka kiim muujinaya in la doon in la hel wiil lumay zombigii mar inuu dhibaato kalo laakiin wuxuu qortay haddii shaqaas uu qabto la kulmi karo dad badan taasoo sahlayd in ogaado noloshiisa dhabta ahayd wuxuuna bilaabay inuu isdiyaariyo tilaabada koowaad waxay inuu qaar wejigiisa ambinimada wuxuuna ismeekab galay wuxuuna xirtay dharka kiim wuxuuna tagay halkii loo diray wuxuu ogaad in eygil raadin uu laha wiil yar kaasoo u balqaad hlashin qura zombigii aad bacur wuxuuna canatay wiilka balse markaas yatim gabadhii ayadiisii ahayd oona hena cid kale ahayd sooniya markuu arkay zombiga wuu cararay sooniya waxay ka qaaday guufay qof kale waxayna ku garacday madaxiisa zombiga wuu soxsooni si deg bay u tuma si weyniis u hubiso wuxuuna ahaa mid aan garaacmaynin taas micnaheedu waxay isweydiisay inuu nool inuu dhintay waxayna wacday ambalaas laakiin dhowr daqiiqo kadib u istaagay gudaha ambalaaska isigoo qof walba cabsi geliyey sooniya waxay si dhaqso loo qaaday isbitaalka balse halkaasi caqli buu ugu baxsaday wuxuuna markaas marka noqdo kaajo daran wuxuuna isku dayay inuu cunuqo balse markaasuu miir yeeshay kadib wuxuu arkay email u dhow fadhiya wuxuuna afkidhis hortiisii suu cuno laakiin markaasuu na rastay igaada mucun eega zambiga wanaagsan wuxuuna guriga u fadhiyay kaajo awgeed markaasuu muqul war sheegay meel lagu bixina maraq bilaasha markuu halkaasi tag wuxuu ogaaday maraqii bilaashka u dhammaaday hadduu uran dad u eg zambiya halkaas ku ciyaarsi wuxuu siiyay hoteelka wuxuuna ogaaday inuusan u baahiyo inuu ciyaarsi u helo maraq wuxuuna si wanaagsan u ciyaaray markii la gaaray waqtigii maraqa isigoo aan suug maraqa iyo bilaa inuu jikada kale wuxuu lib cirin ah markii aragtay cunta kareysi jeef ayaa qiilisay waxaagna sooniya saaxiibkeedii sirkaal ku sugnaa hoteelkaasi kuwaas oo socdeen dilan zombigi bal zombigii baa garaacay zombigu wuxuu ogaan mid waan xiligaasi wuxuu ka carur koobta wuxuuna kalkeenta ugu baxsado markii dareenkiisii suubinimada degtay wuxuu bilaan ku saartay xaaladiisii biniaadamnimada wuxuuna ogaansan ku noqday xafiiskii defense team markuu jidka marag wuxuu arkay geerid ilmo yar markuu arkay gabadhaas wuxuu dareemay wuxuusan garanayn wuu carod wuxuuna bilaan shashada garaaco kadib si waxay naqsan fadhi xafiiskiisii markaa bay timid mulkiilada guriga defense team waxay u
timid inay weydiiso kirada guriga. Zombigi halka deganaa sidaas darteediisa baa laga rabo lacagta kirada. Wuxuuna u baahan lacag buuq ku fikiraa si lacag u helo. Wuxuuna xasuustaa Sonia martii maxfiiskiisii soo heshiisay. Sonia mar indicator team oo Zombigi dacwad ku gudbiyo. Waxayna keentay heshiis qoraal laakiin Zombigi wuu jaxay. Hadda wuxuu bilaabay inuu raadin qolka mid heshiiskaasi. Wuxuuna ka fikiraa haddii aan cusub $100 wax walba xalin karaa. Markuu u socdo nolol Sonia wuxuuna arkay dad abduwan Sonia si geesnimo wuxuu istaagay wadada gaarish abduwash ku socdeen. Wuxuuna badbaadiyay Sonia wuxuuna gaxfiiskiisii halka ay ku yiri adiga maalinta koofiyada madaxa ka dhufatay. Waxay ugu dhacay dhawac weyn taasoo ay keentay si fiican u shaqeynin. Hadda waxaan u baahan $100 magdhow. Sonia waxay ka samaysay wajig murugla waxayna ku tiri wax lacag maas laakiin haddii rabto wax ku noqon kara kaaliyaha gaaniga lacag la'aan. Markuu taan qol wuxuu ku yeesay socod kacba koorintu sun guri ku saaray macaamiil hoodegeerti ka timid. Waxay da tiriisho weyn oo rod in gabadheeda la ido kaashanaysa degeertifkii oo hadda Zombigi waxay u dartay lacag bas loo qabto shaqadaasi. Koorintu sun Zombigi Sonia ay tiri aan ku qabin shaqadaada. Sonia waxay weydiisay su'aal muhiim ah sidee halkee ba ku dimisay inay koonto gabadhaada waxay xaysiinaysaa waqtigii ugu dambeysay. Sonia waxay doori baaris saad darteed wax yar bay khibrad u arrimahani. Zombigi oo fadhi wuxuu fahmay lacag ba uu qabto shaqadaani uu u baahan Sonia ugu dambeey wuxuu bilaabay Sonia karidkaalihiisa. Sonia hadda waxay bilaa baaritaanka waxayna tuhun ka qabatay xarunta mudasha maalinta wax dhibaato ka muuqaalkaasi laakiin habeenkii waxaa la koox qorti ah kuwa soo doonay carruurta ku jira xaruntaas lagu dor kooxdooda waxayna soo jireen xalkiimka isla markaa shaqo xoog bay ku qabsan jireen. Si taas u Sonia waxay gashay xarunta iyadoo gashay weeru habeenkii halkaas waxay gashay gabadha eeradan gabadha tirashada. Markay Sonia xarunta ka baxay sida gabadha wadata waxay ogaatay kaamiyo kooxda kulta ogaadeen Sonia xalba ogaatay reerkiisii isku day inay khataan Sonia si u dilaan laakiin Zombigi wuxuu kasoo noqday gadaal wuxuuna isticmaalay gaar sidii muddo wuxuuna ku dilay gacan yaraashi hogaamiyada macluul ku dil Sonia oo fiiqan laakiin Zombigi wuxuu istaagay gadaashiisa u badbaadiyo ushii fiiqneed wuxuu ku dhacay ushiisii balse Zombigi waxna ma dareemin wuxuu dabcan dil hogaamiyada ugu ciidinaya laakiin Sonia ku qoylisay u joojiso daqiiqada kadib booliska ay qabto kaamiyo kooxda ugu dambeyn Sonia Zombigi waxay dhimeen hooshooda markii Sonia u timid guriga Zombigi si ugu hambaliso wayna markii artay ugu qaban jirkiisii ku dooyin ka muuqdaan waxayna isweydiinaysaa sidee ku dhici kartaa arintani. Sonia si dib u fatlaabtaykeeda waxayna bilaashay raadinta xog ku saabsan Zombiyaas halkaas walaalkeedu ku jir dhabhaantii waxaa jira Zombiyaal ku nool dunida. Sonia waxay dib xasuustay wixii hor u dhacay waxayna garsoobtay si uu maqal garaac wadna Zombiga maalintii madax ku dhufatay goofeeda sidoo kale waxay tan sababta waska su'aalka hogaamiye kooxda kolti si uu badbaadiyo Sonia xitaa wadaawac waayay ma dhaabicin sababta wuxuu Zombi waxay arrinta oo sheegtay walaalkii laakiin ma soo rumaysan iyo waxay aad guriga Zombiga iyadoo si wanaagsan u ilaalinaysa halkaas uu Zombi shaqada ku qabto waxa lacagta inaga siiso Zombiga uu istaagay lacag siiyo marka ay Sonia bilaxno doona caloosha waxay ku dhacday dhulka. Sonia waxay u milisay Zombiga doonay cuno laakiin Zombiga isbitaalka uu geeyay markii meel ku soo noqday arrin noloshay ay gartay Zombiga mid aad wanaagsan dadka cunin hadda waxay gaarsiin caawiso Zombiga maadaama Zombiga uu ogaal taariikhdiisa. Sonia waxay su'aalo badan sida markii uu guursay sababta Zombiga wuxuu siiyay Sonia sidii uu watay markii filimka bilaabanayay sidoo kale wuxuu siiyay saacad Zombiya. Sonia waxay ku daawacday waxyaabo si baraha bulshada waxayna tiradu qof ka raasad ku saabsan laanta fadlan la soo xiriira kadibna ay sabab wuxuu sheegay inuu yaqaan sidaasi halka ay Sonia kula qortan yiraahdo Zombiga uu xarkoor gabadh la dilay siin wuxuu qofka jooga markii gabadhaas dilayay koorintu salaha siin wuxuu wactaan sheegay hooyadiisa la waayay shaqada litaanka weeras waxa la xisaar Zombiga Sonia waxay ka daalin haweeneydaas weyn ugu dambeyn waxay keenan buug weyn u dhawaa koorintii si Sonia ka haweeneysi fardur joog aad xoog badan horteeda yimid urda macin weerar Sonia laakiin Zombiga markale uu badbaadiyo Zombiga wuxuu badbaadiyay Sonia hadda wuxuu diyaar garow dagaal uu kala doofarka wuxuuna u muuqday inuu garan wada doofarka wuxuu garaac meel kasta Zombiga wuxuu istaagay boorta dushiisa uga careysan wuxuuna u yiri doofarkii markuu doofarkii u soo urday Zombiga wuxuu la nac kala soo leexiyo taasina sababtay doofarkii ku dhacdo weyn nasiib darro soo dhacay sidoo kale qabsay Zombiga. Sonia waxay ka baqay Zombiga uu dhinto laakiin waxay ka Zombiga u soo qaaday doofarkii isagoo ku xirtay kadib labadooda wuxuu tagay si uu sii hooyadiisa si wuxuu madal labadooda hortaan hooyadiisa waxay u qaatay Zombiga wiilkeeda waxayna bilaabay iyadoo karabkiisa ku dhagan Zombiga wuxuu darlagay in isugu soo sidaas la mid ah muddo kadib Zombiga wuxuu u sheegay Sonia in riyunkiisa waa ka dhimasho la kulantay. Sonia waxay madinada xiriir ka dhaxay Zombiga gabadha Zombiga wuxuu rubabalaas arka gacanteeda ri kasta Sonia saaxiibkeedii dambaar waxay markii hore balankiiskii dilka gabadhaasi laakiin wax boobal laga helin halkaas ay ku dhamaanaysaa qaybtii ko taxanaheena waxaan aad iyo aad isku dadana soo khalaasay qaybtii labaad aad iyo aad baa u maasanta daawade si aad markii ugu soo booqato janaaka basi films waxa ka codsan janaaka subscribe ku heen adiguna subscribe waxa ka codsan muuqaalka lana garso kambalkan afartii ku soo gartay qaybtii labaad haddaba inoo raa fikirkaada inaa qof wanaagsan kale aad iyo aad baa u maasanta saaxiibayaal waa idin jecel ninka wax iga dhigay ninka la antiina waa abaar.